Okay, hadda waxaynu joognaa timeline-ka CapCut ayaynu joognaa marka si aan barnaamijka u diyaarino ayaan halkan tegaynaa. Okay, play. Si markaan u diyaarino barnaamijka waxaan u baahanay marka hore inaan soo gelino studio-ga ayaan soo gelinaynaa, background-kii kore ayaan soo gelinaynaa marka hore. Oh sorry. Marka hore background-kii kore ayaan soo gelinaynaa. Okay. background-ka sidaas ayaan ku soo gashanay. background-ka marka waa dheeraynaynaa maadaama video-geenu dheer yahay. background-ka ayaan dheeraynaynaa marka. background-ku waa sawir dabcan. marka background-ka dheeraynayna waxaan ka dhigaynaa ilaa 1 daqiiqo iyo xoogaa aan ka dhigaynaa. Okay, warisiibad. marka xoogaa ayaan dheeraynaynaa 1 daqiiqo iyo dhowr second. Okay, hadda intaan markaan halkaan keenay marka waxaan rabnaa inaan soo gelino. waxaan soo gelinaynaa wariyihii ayaan soo gelinaynaa. waxaan leenahay overlay. kadibna add overlay baan leenahay. video aan tagaynaa. wariyihii waa kan. green screen-kan ayuu ku jiraa wariyaha. Okay. Well, you have thousands of followers who made this. Okay, marka halkaan markuu inoo joogo waxaan sameynaynaa wariyaha ayaan waxaan ka qaadaynaa green screen-ka ayaan ka qaadaynaa. marka waxaan leenahay remove background, cagaarkaas ayaan ka qaadaynaa. Okay, waan ka qaadnaa cagaarkii. halkan ayaan dhexaan keensanaynaa, xogaan waan soo dhaweynaynaa, centerkan ku aadinaynaa isaga. Okay, haddii codka xoogaa laba nin kala duwanaado, laba nin isticmaalayaa dhib ma lahan. adiga ka heshid oo kuukii kale. halkaa markaan saas u nimid waxaan sameynaynaa, waxaan soo gelinaynaa haddana miiska ka sokeeya wariyaha. miiska ka sokeeya ayaan keenaynaa haddana. Okay, sawirada ayaan tegi doonaa. sawirada maanta miiskan ayaan soo qaadanaynaa. sidaa ujeeda miiskan 2 xabo weeye, midba background cadaan leh, midna background ma laha. meesha lagu soo jarayo waan ku siin doonaa, meesha background-ka lagaga soo jarayo. Okay, miiskii waa keenay. miiskii kaligiisaan keenay. soo dhawee, aga soo dhig. Okay, hadda waan keenay miiska aan leekaysiino meesha. markaa miiska aan leekaysiino wariyaha xaq dhowr. wariyada meesha wuu ka weynaa, laakiin dhan male. innaga waxaan ka rabnaa intaasaan ka rabnaa. Okay, intaan markaan keenno, bal hadda intayna wax ku qorqorin waa inaan eegnaa. As a content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who made this engage. If you don't feed them a regular daily stream of high quality engaging content. Wow. Okay. waxaan rabnaa marka inaan keenno lower thread wax la yiraahdo, ama halkan shape-kan qoraaladu ayaa aan rabnaa inaan keenno. marka halka shape noo soo qaad. sawirada noo tag. horaad kan soo dhifo. Okay, kan halkan keen. soo jiid weynaysi leekaysi meesha. Wow. Oga halka ge. waa okay. kan meesha waa inuu leekaadaa isaga. bannerkaas waa inuu meesha leekaadaa. meesha farbaa qoraal baa ku ciyaari doona, marka waa inuu meesha leekaado. Okay, soo yaree kan xoogaa. marka xoogaa yar uu maqan yahay. marka xogaagaas yar waxaa la sameeyaa animation loo sameynayaa. animation yar uu ku yimaado loo sameynayaa. animation yar baa loo sameynaya uu ku yimaado. dubankan oo kale qaadanayna. Okay, ka hadda ku guuleysanay. waxaa noo soo hartay inaan meeshaan far soo dhigno, qoraal inaan soo dhigno. tusaale waxaan leenahay qoraalkan ku qoraynaa. marka qoraalkan ku qoraynaa waxaan leenahay qaabka loo sameeyo studio TV. qoraalka marka meeshaan ku habeynaynaa. hadda xoogaa yareysanaynaa. meeshaan ku habeynaynaa. hoos baa dhigaynaa qoraalka.
اوكي qoraalkaas xogaa ma dheerisanayna marka isaga gadaal baa geysanaynaa okay qoraalkan marka meesha xoogaa qoraalka marka customize garaynaynaa xoogaa furaway baan ka dhigaynaa macnaha bold baan ka dhigaynaa halkaan tegaynaa style kadibna waxaan sii tegi doonaa halkaan bold baan ka dhigaynaa sida jeeda qoraalka waaweyn halka noqday okay kii hore waxaa arkaysay xaggaas dhanka bidix waxaa kasoo baxaysay intro ama logo waxaa kasoo baxaysay loogada kasoo baxaysay marka loogadii saan u keen waxaan sameynaynaa overlay baan leenahay kadibna waxaan ku noqonaynaa meesheenii hoosaan aadaynaa waata loogadii okay loogadan aan soo yareynaynaa halkaan aan soo dhigaynaa loogada adiga taada xataa waa isticmaali kartaa hataa loogo markaa leedahay kuguma xidhna inaad looga kala raadsato laakiin aniga hadda tusaale looga tv muhiimadda intaas ay ahayd looga tv inaan keeno loogada waxaan sameynaa animation ay ku timaado sida haddaan no mid ku habboon bay keenaynaa kan ayaa ku habboon is okay qoraalka waa kaas waa intaas loogada markay saan u timaado As a content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who, loogada markay saan u timaado as a content loogada markay saan u timaado meeshaas waxaa la rabaa loogada sokadeeda inuu qoraal kasoo baxayo sidoo kale waxaa arkaysay haddaa ku doon muuqaalkii hore ku noqdo waxaa kutusaya meesha miiska ka sokeeya wariyaha oo wariyaha ku aadan waxaa ka muuqanaya muraayad oo wariyaha sawirkiisa oo dhaqdhaqaaqaya marka waxaa sameynayaa muuqaalkiisa laftiisaan koobiyeynayaa kiisa hadda ayaan koobi ka qaadayaa kadibna waxaan leeyahay koobiga ayaan leeyahay koobi ayaan leeyahay waa koobiyey marka koobiga wuxuu ku geynayaa xagga lama rabo inuu inta ku geeyo soo kaxee halkan soo geli ma soo galay maya ma soo geli meeshii ayuu jiraa waxaan leeyahay waryaha xagga keen kaysii meesha hadda ninka wuu ka sokeeyaa laakiin ma rabo inuu kaas ka soko maro waxaan rabaa inuu kaa shishay ka maro leeyirkaa shishe inuu shishay ka maro ayaan rabaa waa yareynayaa marka dhamana waa jaran doonaaye waxaan ku sameynaa marka rotate labada furoodaan ku qoonaa waa gedinaa sawirka speeduga waa gedinayaa waa ku aadinayaa xoogaa marka overall waxaan tegayaa masking baa ku sameynayaa masking sida ujeedu waa masking gareeyey masking intaas camalan ka dhigayaa okay waa jaray okay saa isagoo marka waxaan sameynayaa waxaan ka yareynayaa opacity-gan ka yareynayaa si maaragtay u noqdo sawir oo muraayadda miiska ka dhex muuqdo si uu noqdo wakaas boqolkiiba 55 baan ka dhigayaa khalaas. As a content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who may disengage if you don't feed them a regular daily stream of high quality engaging content. Okay, ujeeda wuxuu ka dhex muuqdaa muraayadda miiska ayuu ka dhex muuqdaa quality engaging ayuu sawirka dhaqdhaqaaqaya ka muuqdaa sidii in muraayadda miiska qofku shishadiisa fadhiyo kale. Okay, marka intaas markaan sameeyo waxaan sameynayaa qoraalkii waxaan sameynayaa oo wararka kore qaybta akhbaaraadka koraan sameynaya hadda. Okay, halkaana marka qorayaa wararka Amerika warbixinaha xisbiga
xisbiga jamhuuriga tusaale intaan soo qaadanayaa markaan marka hore u qaadaya xoogaa waa yareynaya kan waa ka yareynayaa waan kasii yareynayaa intaasaan ka dhigayaa royb iyo meelahaas kalan dhigayaa laakiin waxaan rabaa fartan qoraalkan inuu yeesho highlight inuu yeeshaan rabaa marka si uu highlight u yeesho waan xoogaa ii weynaysa horta meelahan iige si uu highlight ugu yeesho waxaan sameynayaa double click aan siinayaa qoraalka double click ayaan siinayaa customize aan rabaa inaan ku sameeyo meeshan double ku qoran tahay double meesha ku qoran tahay babel maahe style baan taabanayaa style waxaan kasii dooranayaa canvas aan dooranayaa kanaan sii dooranayaa kadibna qoraalkaasaan dooranayaa okay xoogaan soo yarinayaa خلاص okay waxa ay dhiman hadda inaan animation ku sameeyo qoraalkan inaan animation ku sameeyo ayaa ay dhiman okay animation ku habboon inaan ku sameeyo waaye marka mid ku habboon inaan ku sameeyo waaye animation ku habboon meeshaan ka baarayaa mid ku habboon oo wararka akhbaaraadka tviyada kale kor soco waa ka Robio who made this engage. okay markaad soo dhacay fiirso. As a content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who made this engage. If you don't feed them a regular daily stream of high quality engaging content, you have hundreds, perhaps thousands of brand images and wow okay weeye qoraalkan waxaan soo gaabinayaa copy ayaan ku sameynayaa marka qoraalkan marka copy la halkan copy ayaan taabanayaa kadib qoraalka ku daba qabanayaa waan soo ugu dab qabto oo afka u saaraya soo hal mar isu kala bedelo marka kana edit gareynayaa kii hore waxa wararka xisbiga jamhuuriga waxaan leeyahay wararka halka laba dhicood aan dhigayaa kadibna enter baan leeyahay halkan waxaan qorayaa dadka reer America waxay jecel yihiin okay marka labadan qoraal si isu kala bedelaan u fiirso way kala qoraalku kala duwan yihiin si isu kala bedelaan marka labadaba animation way wadaagaan marka si isu kala bedelaan u fiirso. well. You have thousands of followers who made this engage. If you don't feed them a regular daily stream of high quality engaging content, you have hundreds, perhaps thousands of okay xogaan soo yareeyo qoraalka dheer cabaar ka baad isku bedelaya marka waa soo gaabinayaa kana soo gaabi ku tabaqabo As a content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who made this engage. If you don't feed them a regular daily stream of high quality engaging content, you have hundreds, perhaps thousands of brand images and creative assets, but they're locked content. You have hundreds, perhaps thousands of brand images and creative assets. But okay, sidaas hadda waxa ku keentay qoraalkii maxaa la yiraahdaa iyo akhbaaraadkii iyo waxa dhinacaas ku keentay waxa ku dhiman wariyahan sheekeynaya magaciisa soo bixi lahaa waxa jirta sheebsay yaraan soo download kareynay ayaa jira marka sheebiskan soo qaadanayna okay sheebis waxaan kala sameynaa halkan kan ayaan qaadanayna Robio waa soo dejinay kan waa insha Allah wadna wadaagi doonaa qaabka soo dejiyay intaan ka dhigay wariyaha marka kan xogaa ayaan yareynayaa ilaa wariyuhu meesha sloogada iskeedana ku aadinayaa okay marka wariyaha marka waxaan rabaa inaan xogaa dheerinayaa magaciisa okay
اوكي هذا marka wax rabnaa inaan animation ku sameeyno qoraalka magaciisa wariyaha magaciisa ku qorno meeshan qaybtana marka hore qoraal ku sameeyno animation ku sameeynaa si animation ku sameeyno waxa sameeynaa waxaan ka keenaynaa geeskan ayaan ka keenaynaa followers who may disengage followers who may disengage okay marka saas iyo waxa sameeynaa qoraalka ayaan ku dul qoraynaa oo wariyaha magaciisi wariyaha magac soo bixiya asxaabay wariyaha magac soo bixiya aan ku qoraynaa George alias Alison George Alison halkaan magaciisa ku aadin ka qabaha abaar u qabaa isagii hooyadiisba okay marka waxaan sameynayaa farta qoraalka waxaan ka reebayaa wariyaha waxaan ka reebayaa borderka la socdaan ka reebayaa aan border baan leeyahay meeshaas borderka aan taabanayaa canvaskii kadibna aan baan leeyahay sidaas ayaan isaga u reebay laakiin waxaan sameynayaa animation ayaan sameynayaa wariyahan engage okay sorry intii raisaan okay as a content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who may disengage if you don't feed them a regular daily stream. Okay. You know the problem well. You have thousands of followers who may disengage if you don't feed them a regular daily stream of high quality engaging content. Okay, fartan marka waaweyn ugu horeysa ayaa xoogaa waxay sameynaysaa farta kale ay dhaafsiisan tahay halkaas aan dhigayaa fartan la sameeyaa macnaha luuqan wax ka soo ridayaa loogadan ka soo ridayaa luuqaas araba loogada qayb ka mid ah luuqaas ku soo rido tamaan loogada waatan koobi ayaan leeyahay koobiga fogaaday koobi gadaal bay aadmaya okay sidaas bay gudaa As a content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who may disengage if you don't feed them a regular daily stream. No. As a content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who may disengage if you don't feed dhowr threadka saasan xoogaa yareynayaa خلاص ويري وريها ميسكي سنة حوغان ميسكنا حوغان كروقات يا وريها هرتا كروقات كانوا باقدة اوكي كاس معهم ميسكي اوي ميسكي حوغان كروقات حوغان ويجي ساكدك بروب iyo waka wariyahaas ay haray marka inaan hawada kor u qaado sidoo weyn madax la galano ma rabo خلاص Content marketer, you know the problem well. You have thousands of followers who may disengage if you don't feed them a regular daily stream of high waan dhameeyay saasan ku dhameeyay asxaabta waa mahadsantihiin muuqaalka waajibkiisa mariya comment like subscribe share like dabada u qabta waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan abaalkiisa siin doontaan aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.